nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo weliba waqti walba oo aad jeceshahay daawade magacaygu waa Shini Gestir waxaan caawa video gaaban aan ku baranaynaa sida loogu xisaabiyo Microsoft Excel-ka xisaabta loo yaqaano trigonometry inagoo raadinayna cabirka dhinacyada tusaalaheena koowaad waxaana la yiraahday find x soo hela dhinaca x waxa muhiim ah intaanan xisaabtan u guda gelin inaan ka shaqeyno inaan garanno qaacidada aan isticmaalino saddex qaacido midda aan isticmaalino inaan garanayno waa muhiim waa hagaag waxaan loo diray dhinaca ka soo horjeeda xagasha 30 degree magaciisa waxaa la yiraahdaa opposite waxaan kaloo haysanaa dhinaca ugu dheer kaasoo magaciisa la yiraahdo hypotenuse opposite iyo hypotenuse ayaan haysanaaye saddexdii qaacido midee baan isticmaalaynaa waxaad soo fiirinaysaa marka saddexdii qaacido halkan waxaa kaaga muuqda sin in lagu helo opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse waxaan haysanay hypotenuse waxaan loo diray opposite dabcan waxaan isticmaalaynaa sin function waa hagaag waxaan ogaanay qaacidada aan isticmaalino inay tahay sin function waxaad dhahaysaa marka waad ku bilaabaysaa calaamadda lamidka mar walba oo aad Microsoft Excel-ka wax ku xalinaysid waxaa qasaba inaad ku bilaawdid calaamadda lamidka markaad lamidka ku dhufatid waxaad dhahaysaa oo click siinaysaa 25 oo ah hypotenuse lagu dhuftay marka waxaad furaysaa qawska markaad furtid ayaa waxaad ku qoraysaa sin function-kii waa ku soo baxaya function-ka sin markaad ku soo baxo ayaad click siinaysaa laba jeer marka click siisid sin waxay ku furtay qaws cagaaran qawska cagaaran kadib waxaad ku qoraysaa radians function-ka radians ayaa ku soo baxay radiansna click ayaa siinaysaa laba jeer radiansna wuxuu ku furay sidoo kale qawska gadaashiisa ayaa waxaad ku qoraysaa cabirka aad haysatid xagasha taasoo ah 30 degree click easy kadib waxaad ku soo xidhaa saddex qaws kadib enter dheh waxa ku soo baxday cabirka opposite kaasoo ah dhinaca aad raadinaysid 12.5 cm 12.5 cm halka igu soo qor waxaad soo xalisay dhinacii loo diray waxaan u gudbaynaa daawade tusaalaheena labaad inoo ka faa'iideysanayna waqtigeena waxaana la yiraahday tusaalaha labaad find x soo hela dhinaca x haye dhinacan loo diray x wuxuu darsi leeyahay xagasha aan haysano 35 degree magaciisa waxaa la yiraahdaa adjacent waxaan kaloo haysanaa dhinaca ugu dheer 25 cm magaciisa waxaa la yiraahdaa hypotenuse adjacent iyo hypotenuse aan haysanaaye saddexdii qaacido midee baan isticmaalaynaa cos ayaa waxaa lagu helaa adjacent-ga oo loo qaybiyey hypotenuse waxaan ogaanay inaan isticmaalino cosine function waan garanay cosine function ayaan isticmaalaynaa markaas waxaan dhahaynaa adjacent waxaad ku bilaabaysaa mar walba calaamadda lamidka haye waxaad dhahaysaa marka 25 oo ah dhinaca aad haysatid oo lagu dhuftay baad dhihi kadib waxaad furi qawska markaas waxaad ku qori cos oo ah function-ka isticmaalaysid cos waa ku soo baxay function-kiisii kadib laba jeer baad click siinaysaa sidii oo kale waxaad ku qori radians haddana function-ka radians baa ku soo bixi radiansna laba jeer baad click siin marka kadib ayaa waxaad ku qori cabirka xagasha aad haysatid oo ah 35 degree click isoo sii kadib waxaad ku soo xidhaa saddex qaws enter waxa ku soo baxday adjacent inuu la mid tahay 20.5 cm sidaas ayaa waxaad ku soo heshay cabirka dhinacii lagu diray daawade waxaan u gudbaynaa tusaalaheena saddexaad sidoo kale waxaana la yiraahday soo hela x find x hay x waa dhinacna loo diray wuxuu ka soo horjeedaa xagashaan haysano oo ah 37 degree magaciisa marka waa opposite waxaan kaloo haysanaa dhinaca dariska la ah xagashaan haysano 37 degree kaasoo magaciisa la yiraahdo adjacent
maadaama uu xagasha uu daris leeyahay adjacent macnaheedu waa daris marka adjacent iyo opposite baan haysanaaye saddexdii qaacido mideebaa opposite iyo adjacent lagu helaa ama ay ku jirtaa waxaan soo fiirinaa marka saddexdii qaacido tangent ayaan imaanaynaa tangent ayaa waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey adjacent-ga dabcan waxaan isticmaalaynaa markan tangent function hay waxaan dhahaynaa marka opposite oo ah dhinaciina loo diray waxaan dhahaynaa waxaa lagu helaa lamidka mar walba bilaabaysaa lamid adjacent oo ah dhinacaan haysano 10 centimeter ah oo lagu dhuftay baad dhihi markaas qaws baad furi qawska ayaa waxaad markaad furtay waxaad ku qori functionka aad isticmaali sidoo ah tangent waxaa kuu soo baxay tangent functionkiisii sidii oo kale ayaad waxaad siini 2 jeer click markaad 2 jeer click siisid tangentii wuxuu furay qaws cagaaran kadib waxaad ku qori radians functionkiisii isna waa kan isna sidoo kale 2 jeer baad click siin kadib waxaad ku qori halkaas cabirka aad haysatid xagasha oo ah 37 degree 37 degree waatan click si kadib waxaad ku xidhaa qawska oo ah 3 jeer 3 qaws markaad ku xidhid enter dheh waxaa kuu soo baxday cabirka opposite inuu la mid yahay 7.5 centimeter sidaas ayaa waxaad ku soo xalisay su'aalahani ugu dambeeyay daawade inta aan video la mid ah ku kulmi doono waxaan kuu sii dhaafayaa nabadgelyo korkaaga ha ahaato